magaaladan meel kasta sar dheeraa laga dhis jidadka waa la dhis dhulkii dawladda waa la dhis ciid iyo shamiito iyo bir waa la iskor saaray laakiin magaaladan oo 2 milyan ay ku nooshahay malaha hal nin waa shakhsi waaxid oo leeslo ogol yahay oo dadka dhibaataysan si loo kaalmeeyo wax lagu aamino magaaladan oo degantahay 2 milyan oo hal nin laga waayay oo la aamino si dadkan dhibaataysan oo dirbiyada jiifa oo guryaha leen oo ku jira cooshadaha 30 ka saan looga saaro oo loo dejiyo magaaladu ma qurxanaanayso nabadgelyana heli mee inta sida hadda ay tahay saas darteed waxaan fariin u faraa sheegi ma ay calooshooda nimankan jooga bakaaraha oo saraha dhaadheer dhisay war sidaan isku dhaama xoolaha aad haysiin ummadda uga kaalmeeya oo dawlad dhisa oo in la dhiso ogolaada dawlad waa dawladiid waxay rabaan inay canshuurta la baxsadaan waxay isleeyihiin haddii dawlad timaado waydan canshuure war maya haddii dawlad timaado waydan canshuure laakiin dalkan nabad noqonaya dad badanna waa imaanayaan xooluhuna waa kobcayaan ee ogolada dawladnimada oo dawladda adinku dhisa haddaad dhisi weysaan si fiican la dhigayso mid baa bixi meel buu lacag ka soo qaadan dawladdiiu iibsan markuu dawladda iibsadana bakhaaradu idinka xira adinku cadulo waaweyn inta goorta xoolihiina ugu adeega dadkan aad xoolaha ka samayseen mar kale odo duub weyne sheekh imaamad weyne ganacsada calool weyne saddexdaasow ummadan inaad cadowgooda tihiin iyo inaadan cadowgooda ahaynina sanadka soo socdaa la kala ogaa 2021 saan xamar muqdisho ma sii ahaanaysee diyaar garow waana laga adkaaha haddana isbedelin gabagabadii waa ogaa waqtiga waa ku dheeraaday wax badana ay ku jira dhibaato badanaan dareemaa oo dadka ina dareemay wax kale meesha ma imaan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan inay fiicnaadaan waxaan rabaa dadka degan magaaladan inay ka baxaan dhibaatada 30 sano ka horna waa ku jiray dad waxay ku leeyihiin 30 sano maya 50 sano lagu jiro intii la keenay gulada oo yimid iyo habar durbaan tumaysa dhibaa lagu jiro magaaladan waa inay ka soo baxaan dad wax garta waxay joogtaa alaysa minkum rajul rashid magaalada muqdisho waa inay ka soo baxaan dad wax garta oo dadka degan dhibaatada ka saara si Soomaaliya dhibaatada uga baxdo